هي أصحابتك كسول هاي جنال كينا إلى سعودو ما تبرامج كينا وحوك سابسين هاي رياكشن أو كسمعني فرانت بيكي أو مرن هذا الكيس اللي أيان تان برنامج وقبنا شو إنجليزي وحكو اسمه قصي عمل يعني هذا لو واحد سياسة دي واحد علي مركا وحرنا إنا نالدا وتان فيديو ير عن كسمعني بس إنت أقول قلنا هرت مركا هوري هذا نوع سبتاي سبسكرايب صار ساو نقطة خفق وري أركو إنت أنا كسيل إيران أنا أقول قلنا برنامج kulanti wanaagsan oo aan meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aan ku waraysanayno fanaanka caanka ah Maxamed BK oo garabkayga fadhiya waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore oo Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo walaa wariya ma jecla horta wanaagu ku shaqeynaya ninkan alaada Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadka Soomaaliyeed ee bulshada ah in la iska hor keeno waxaan weydiinayaa Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba wallahi fanaanka eedo u fadhiyo wallahi iyo waxa uu qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jiraya Maxamed soo dhaw TV Universal عبد الحفيظ بض ما سنتهاي الله كو عسمو أمدا الصومالية ملكستي جوغان إنا داونينا aad baan salaamayaa waxaan cod dheer tacsiyo ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun naxariisto dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtaay naga kor qaado amiin tacsida horta waan diraya mar labaadka si xun wuxuu sheeg sixir uu ka daray dab munaafiq shiday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan oo tacsiyo baan diray dabadna dad ba ka faa'iid laakiin dadkii beddelay idisto xaq kale korbi waxaan taageerayaashayda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahay inay jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa muqdisho xal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed Tacab mar dambe uma naqanayo dhani sibaad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waad iga sheegay hameen hore waad sheegtay xalina waad iga sheegay dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatada soo gaartay inay ka tacsiinaysan ka cuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhaxoodimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicin bulshada isaga hor imaan adaa idin fasir wallahi fankan iyo fanaanka siyaasaddan iyo fanka isku wadid ma joojinay mise ma joojinaysid oo hal meel ma ku ekaanay niyo waan dhibtay Cabdi Xaafid aad baad u mahadsantahay adiga iyo Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu بيكهان وسكيكي مرجين لكن ما كلا ساري أبو فنان صوماليات بانهاي مرايدة جرينا ستة ونسك ساري فنان صوماليات مرايدة جرينا وتم هوا حكوا يعني مركز سفاع وحموالك يجيب مكوا مع عمل وإثبت لي خف سواء أسوأ سمانا مكوا اسمه نقان أداة هنا ما نقان لا فنيو قلنا نسميه حتى مركان مرادة حرنا سفاح وحو ما أركين إقرها اللقطة تذكر أنت الله ونحريستو فنان سوماليات هاي مقدشان تيجا يقولوا ولد ما أقل بانا هاي ميلو والبنوات تيجا السعودال كيجا يوروب مركان دمايو يوكي دمايو إلى مقدشان تيجا labadayda show ay ugu horeeyeen waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay shuk markay dadka dhintaan show maal qabanaa mis quraan al aqriya maxaa saan had maalkeen lama ku 20 miya quraanka diin aqriin showin gooniskii qabto ya أنا حريص أنا Soomaali waan jeclahay
ma nacbi si xun wuxuu sheeg sixir uu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay intaa u dadaalaysaa daryeelkiisa iyo naftiisa siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliga ugu daashay ficil intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibidaabyada marka fanaan qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo youtuber sidaa wax xaganayd helaysaa beelsi joornaal wax si khaldan loo gelinayaad arkaysaa laakiin qof halkan waxaa u fahmay inuu balbalaarka ka wa la hadalaya waa qofkii jira in badan baan habaaraya waxaa arkaya social media ma isticmaalo laakiin uurka iga duceeya oo habaarkii duco igu bedela Soomaaliya waa aragtay ninka waa idinka sheegtay ee cafiyo leeyahay waa wixii hore waa ka soo noqday muraayada giiriinka waa iska siibay anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasta Soomaaliyan laba ballan waxaan ku qaaday inaan labadayda adduunka tago hata ninkan dadka Soomaaliyeed wax badan ku haysteen inuu mar Muqdisho ma tagay mar xaggaas leela ma soo hadli karo mar saas ma dhacayso mar sidoo kale ma yeelayso ninkan wixiis waa iska fadar badan tahay ninkan fanaaniinta la mid ma aha yaqaan ninkan meelo u juqjuqaya ninkan عرضنا هذا الكاغي سيابك كلا دوون بالله فسري bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan ba dhibaato dhaxta Allah fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya malaayiinta fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhaw Cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnaan oo kabarday naga duubayo nin qaaliya barasaab iyo Cabdiwaasac oo niman qaaliya oo showgii muhiimka ugu horeeyay gilaha oo la fadhiya ninkan in la soo qasbo ninkan in la soo qabto meel la soo fadhiiso edebta iyo akhlaaqda uu hadla iyo sida wanaagsan aniga meeshan shakiyan ka waa aniga dadka Soomaaliyeed waa ka raali gelinayaa deenu weyn calaamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuurade marka hore calaamada waa igu tuurteen igu tuura ku tuura siyaasadda bina kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waan idinka raali gelinayaa I love Muqdisho xalna waa siinay intaas ayaanu ku soo gabagabeynay waa ku mahadsantihiin daawashadiina hataa ku xisabtaa channelka subscribe like anaga ilowin commentigina ra'yigiina fikirkiina waxa qabtaan nagu soo tuurade nagu soo tuurade